السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركل السود واضح أدي هذا ومهتنتين مانتوا إسنين وأنا سديدي طبعاً بيش السديدات سنة كلبا كون يشان يلباتن muuqaal kan waxa rabaa inaan idin kula wadaago laba arrin oo qatar u keeni karta dadka soo galootiga sharci la'aanta ee wadanka sharci la'aanta ku soo galay waxaana sameeyay dad wadanka sharci darro ku soo galay marka saameyn inay ku yeelato ayaa laga yaabaa tan koobaad waxay tahay nin hindi ah oo traagle ah ayaa meel qaldan wadada highwayga waxa uu isku dayay in uu ku kala wareego talaadadii la soo dhaafay kadibna gaari kale oo wadada qaybtii kale uu ku socdo mahana qaybta uu ku kala wareegaya ku socday ayaa taraagi dhaxgalay 3 qof ayaana ku dhimatay ninkaasina wadanka sharci darro ayuu ku soo galay arinta koobaad waa tan kalena gobolka Kentucky ku dhawaad 2,000 oo qof ayaa leesinkii laga laabtay kadib markii waliba dadkaasi waa soo galootay sharci la'aan kadib markii lagu helay in lacag ay bixiyeen oo leesinka ay lacag ku qaateen arintaasina sidee ku dhacday waan idin la wadaagaya sidoo kale balse marka hore soo dhawaada waxaan ognahay dadka taraagada wada intooda badan dadka wadanka sharci darrada ku soo galay ayaa inta badan hadda leesanadii qaatay oo taraagada wada waatii luqadda Ingiriiska la soo rogay oo muuqaalkii ugu dambeeyay hadda aan idin sheegay wasiirka gaadiidka inuu sheegay in 1500 oo qof aan laga joojiyay wadista gawaarida taraagada ah kadib markii lagu helay in luqadda Ingiriiska aysan ku hadli karin oo booliska aysan communication la sameyn karin calaamadihii wadooyinkana aysan aqrin karin ku dhawaad muddo 2 bilood ilaa markii uu dhaqan galay sharciga qasab ah qofka taraag wadaya in luqadda Ingiriiska uu ku hadli karo ama sidoo kalena uu qori karo marka hadda waxa jirta nin hindi ah oo kuwan dadkan singaha la yiraahdo Harjinder Singh in uu 3 qof oo shacab ah uu dilay kadib markii uu isku dayay in U-turn uu sameeyo ama uu ku kala wareego isagoo gaari taraaga wada meel aan loogu talagalin in lagu kala wareego wadooyinka highwayada waa yaqaanaan dadka gawaarida wada ama gaari yar wad ama gaari weyn wad meelaha dhaxda ah waxaa lagu talagalay in boolisku ay galaan si gawaarida xawaaraha speedka ku socota ay halkaas uga jeegareeyaan oo ay ku qabtaan amaba sidoo kale haddii accident uu dhaco ama xaalad degdeg ah kooxaha dabdamiska iyo ambalaasada ayaa loogu talagalay inay ka dhaxbaxaan meeshaas marka looguma talagalin ama gaari yar ha ahaado ama gaari weyn ha ahaadee inaad ka dhaxbaxdo oo adigoo laynkan ku socda aad meeshaasi no U-turn ay ku qoran tahay in aad inta ka dhaxbaxdo oo wadada qaybta kale aad u gudubto waxa kuugu fudud oo aad sameyn karo waxay tahay kuwa sameyn karto exitka kuugu horeeya inaad inta ka baxdo aad wadadaasi kale ku soo laabato freewayga qaybta aad ku socotay maahana qaybta kale laakiin haddii aad tiraahdo U-turn ayaan ku sameynaya gawaarida dhinaca kale ku socda xawaare ay ku socdaan hadda Florida ay arinta ka dhacday waxaan filayaa speedka 75 mile per hour inuu ahaa marka gaari sidaas ku socda xawaarahaasi hadii aad adiga U-turn aad isku dayday inaad ku sameyso waxaad qatar gelisay nolosha dadkii kale ee wadada dhinaceeda kale ku safray marka ninkan sidaas ayuu sameeyay hindiga ah waa muuqaalka sidaad arkaysaan waliba nin kale oo hindiya oo isla singahooda ayaa dhinaca passenger-ka saaran suunku waa u wada xiran yahay marka waxa uu isku dayay in uu U-turn sameeyo gaari kale oo marka minifan oo 3 qof ay saarnaayeen ayaa tareylihii dhax galay waliba gaarigaasi waa uu burburo waxay noqotay in la kala jarjaro gaarigaasi oo dadkii meydkooda 2 qof isla goobta ay ku geeriyoodeen qof kalena isbitaalka ayaa loola cararay markaas kadib ayuu dhintay marka nin 30 jir ah haweeney 37 jir ah iyo nin kale oo 54 jir ah oo dhamaantoodba Florida ka soo kala jeeda meelo kala duwan ayaa halkaasi ku dhintay marka ninkaasi qalad ayuu sameeyay waxyaabaha hadda Trump uu ku andacoonayay waxa kamid ah dadka dambiilayaasha gaangiska dadka ammaanka qaranka qatar ku ah iyo dadka public safety-ga qatar ku ah ammaanka shacabka ama badqabka shacabka ayaan bartilmaameedsanayna marka haddii aad gaari taraaga wado sharciyadiisiina aadan aqoonin waxa qatar ku tahay marka badqabka dadka kale ee wadooyinka kula isticmaalaya halkaasi ayaad soo galaysaa category-gaas marka sida muuqata ninkan hadda 3 qof ayuu dilay ninkan 2018 ayuu wadanka soo galay ninkan hindiga xadka Mexico ayuu ka soo galay waxaana uu ka faa'iideystay sharci gobolka California oo leesinka ka soo qaatay oo sanadkii 2013 la dhaqan galiyay oo ah in leesinka taraaga ama leesinka uu qof waliba qaadan karo iyadoo aan loo eegaynin qofkaasi immigration statuskiisa sharci ma haysta mise ma haysto iyadoo loo fiirinaynin Minnesota waan ognahay sidoo kale inuu ka dhaqan galay marka hadda ninkaasi ICE ayaa gacanta ku haysa waxaana lagu soo oogay 3 dambi oo dil inuu gaari ku geystay iyo waliba immigrationka inuu ku xadgudbay sharci
sharciyadii immigrationka. Marka waxa ay mas'uuliyiintu sheegeen gobolka Florida in ninkaasi si degdeg ah lagu masaafurin doono. haddii maxkamad la saarana waxa uu noqon doonaa qof kasta uu dilay in 15 sano oo xabsiya lagu xukumo, 45 sano oo xabsiya in lagu xukumo. marka arintaasi dadka taraagada wadaada xitaa maalin dhaweed waxaan arkay muuqaalkaas inuu hadda yahay cusub yahay ama mar hore inuu yahay maaqaane qofka inuu xitaa Soomaaliya in kala muuqdo, laakiin Soomaali ayuu ka wada xiran in uu qof isku dayay baahlihii lagu xiray barihi inuu intuu ka qaado oo bal meeshaasi mar waa meel xiran oo wadada ay waa xiran tahay ay ku qoran tahay. arintaasina sidoo kale waa qalad. wadada sideed u galaysaa waa xiran tahay ayaaba ku qoran horey wax laga yaabaa dhismo ama construction inuu ka socdo. marka inaad wada xiran inta iska qaado barihi aad tiraado waan maraya, arintaasina waa xadgudub kale oo waliba laysanka laga laaban karo, ganaaxana lagu dul saari karo maxaa yeelay shaqaale ayaa meesha ka shaqeynaya ayaaba dishay ayaa lagu dhihi karaa. marka arintaasina waa jirtaa ninkaasi meel qaldan ayuu doonayay inuu ku kala wareego wadada sida muuqaalka aad ka aragtaan. waxaa sidoo kale la arkayay shilku markii uu dhacay ninkan emotionless inuu ah, inuu wax dareen uusan muujinin, uusan ooynin, uusan ka xumayn. markii xitaa sida muuqaalka aad ka aragtaan gacmihiisa iska raaracaan oo meesha taagan yahay markii dadkii meydkooda gaariga hoostiisa laga soo babixinayay. marka waxaa la leeyahay ninkan wax dareen amaba ku jirinba, maba uusan ka walwalsanayn oo kama uusan ka shalaanaynin qaladkaasi weyn oo uu geystay. arintaasina sidoo kale waa ay jirtaa. dhinaca kale gobolka Kentucky fadeexad weyn ayaa iyadana ka soo baxday. sida muuqata waxaa la leeyahay meesha laga qaato laysanka ayaa shaqaale ka tirsan waxa ay lacag ka qaadanayeen dadka sharci la'aanta ah. markaas kadib $200 ayaa calaa qof ay ka qaadanayeen maalintiiba. dhowr qof ayaa imaanaysay. waxaa la siinaya dadka barmidka iyo weliba laysanka iyagoo aanan marin. marka gaariga qofku oo laysanka qaadanayo waa inuu gaari wada oo tastiga wadada ku baasa soo maaha, maba la marsiinaynba. lacagtaasi ayaa laga qaadanaya, barmidkana waa loo fududaynayay, laysankana waa la siinaya. dadkaasi gabi ahaantoodba waa sharci daro. hadda marka waxa ay leeyihiin mas'uuliyiinta gobolka Kentucky 1985 qof ayaa laysankii laga laabtay. haddii aad Soomaali tahay oo aad isog tahay in lacagtaasi bixisay oo aad qaabkaasi ku soo qaadatay laysankaada, gaariha ku wadin waa lagala laabtay, mana shaqeynaya, airborna uguma dhoofi kartid, gaarina kuma wadi kartid. haddii boolis uu ku istaajiyo waxay tahay laysankaadu ma shaqeynayo. arintaasi ogow. dad badan oo Soomaali ah ayaa gobolka Kentucky degan. haddaba arintaas sidee lagu ogaaday? haweeney la yiraahdo Melissa Morman ayaa sheekadan qarxisay. waxay ka shaqeynaysay xaruntaasi BMV-da oo ku taala Louisville, Kentucky. marka waxa ay computerka qof waliba marka uu ka shaqeynayo meelaha BMV-da oo laysanada laga qaato, qof waliba oo shaqaalaha kamida computer u qaasa ayuu leeyahay. marka waxay tiri qofka supervisorkayga iyo ayaa waxa ugu amray dadka shaqaalaha cusub inay computerkayga ila isticmaali karaan. sidaas darteed waxay tiri laba qof oo ka shaqeynaysay meesha BMV-da oo laysanka laga qaato ayaa dadkan soo galootiga sharci la'aanta ah lacagta ka qaadanaya $200 calaa qof, isla markaana laysanka u fududaynay. marka computerkeedii ayaa la isticmaalay oo labadaasi qof oo lacagta ka qaadanayay ay isticmaaleen. xaruntaasi waxaa la yiraahdaa Nia Center Driver License Louisville ayay ku taala, waa branchiga halkaasi ku yaala. labadaasi shaqaalaha marka maadaama computerkeeda isticmaaleen, markii arintii la ogaaday oo ayadii ay qarxisay, ayadiina shaqadii waa laga ceeriyay, labadii qofna shaqadii waa laga ceeriyay. marka dacwada ayay xariisay. qaybtii laysanada oo ay ka shaqeynaysay waa ay dacweysay. marka lawyer ayay qabsatay. lawyerkeeda waxaa la yiraahdaa Gary Adams. waxa uu yiri qof intii la rabay in haweeneydan la abaal mariyo maadaama dambi ay fashishay, waxaa loogu abaal guda ayuu yiri in shaqadii laga ceeriyo. sidaa darteed hadda dacwad ayay xariisatay oo way suugaraynaysaa, way dacweynaysaa qaybtii ay ka shaqeynaysay maadaama shaqadeedii laga joojiyay. labadii shaqaalaha oo lacagta ka qaadanaya dadka soo galootiga sharci la'aantana iyaga waa la joojiyay. marka qofku uu laysanka dalbanayo, xogtiisa waxaa loo diraa wasaaradda amniga gudaha ayaa soo xaqiijisa. marka arintaasi sidoo kale waa la dhinac maray. tastigii lama marsiinin dadkan, su'aalihii barmidka oo computerka lama marsiinin, waaba laga gadanayay laysanka. $200 ay bixinayeen, kadibna sidoo kale laysanka ayaa gacanta laga saarayay, kadibna gaari ayayba wadaanba. ayaga naftooda waxaa muuqata dadkaasi in ammaanka ama badqabka shacabka wadooyinka la isticmaalay ay khatar ku yihiin. maxaa yeelay qofkaasi wadadiiba training ma uusan qaadan oo tasti lagama qaadan, imtixaankii ma uusan ku baasin, kii barmidka iyo weliba kii laysanka. waxay sheegtay marka haweeneydaasi in shaqadeena laga ceeriyay, baarayaashuna ay su'aalo weydiiyeen. maxaa yeelay ani computerkayga
in labadan qof ay la isticmaalaan oo dadka soo galootiga sharcilaanta lacagta ka qaadanayay waxaa amar igu sii ayay tiri qofka supervisorka ahaa marka isaguna ma la oga kullay waa baaritaan socdo marka hadda 1985 qof ayaa leesinkii lagala laabtay haddii aad ku jirto oo Soomaali tahay oo aad isogtahay in lacagtaasi ku soo qaadatay leesinkaadu ma shaqaynaya iska ogow airport uguma dhoofi kartid gaarina kuma wadi kartid marka gudoomiyaha gobolka ayna Kentucky Andy Bashir waxa uu yiri arintaasi qof kasta oo ku lug leh sharciga ayaa lala tiigsan doonaa dhammaanba xaqiiqooyinkan hadda waan raadinaynaa oo dabagal ayaan ku haynaa arintaasina waa ay jirtaa sidoo kale dadkii soo galootiga sharcilaanta in ay miiska hoostiisa lacag inta la bixiyo ay leysinkii ay iska soo qaadanayeen aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta waxyaabaha kale ee soo kordha haddii alla idmo waa idinla soo socodsiin doonaa intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo